waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan maanta u sheego inaan marqaati ka ahay macaawanadii ugu horeysay ee abaaraha gurmadka abaaraha ay u keeneen dawladdii ugu horeysay oo ah dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta oo ka jawaabtay dalabkii ahaa in shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay culayska ba'an ku hayaan ugu soo gurmadaan waxaan rabaa halkaan inaan ugu mahad celiyo waana soo gaartay gurmadkiinii waana ku mahadsantihiin waana gurmadkii ugu horeeyay oo dal walaalo ah uu nala soo gaaro sidoo kale waxaan rabaa halkaan inaan ka xuso in shacabka Soomaaliyeed ay mar kasto qalbi iyo niyad wanaag ku soo dhaweynayaan walaalahood shacabka iyo dawladda Imaaraadka Carabta waxaan leeyahay anoo ka wakiil ah waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa halkaan inaan sidoo kale ka cadeeyo madmadowgiisa oo kala dhex galay labada dal Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabta ee ka bilowday dhacdadii Abriil 2018 ee halkaan ka dhacday airportka waxaan rabaa inaan u muujiyo inaan ka xunnahay waana ka raali galinaynaa walaalaheen laba dalo walaala ayaan nahay wixii dhacay waxaan leeyahay horay aan uga soconno waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u cadeeyo dawladda aan walaalaha nahay ee Imaaraadka Carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay waxaan u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasto oo ay diyaar u yihiin waana soo dhaweynaynaa wixii dhacayna waa idinka raali gelinaynaa bog cusub aan bilowno sidoo kale dawladda Imaaraadka waxaan u sheegayaa iyo shacabkeeda in aan bilowno siday haddaba u bilaabeen bog cusub oo walaaltanimo saaxiibtanimo ah oo uu ugu horeeyay uu culeyskeeda uu bilaabay Sheekh Saayid bin Sultan Al Nahyan Allah naxariistii janno siiyo oo ahaa aabihii furay ee Imaaraadka ee xiriirka weyn la lahaa Soomaaliya marka waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale sidoo kale waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtiin waad ogtihiin dawladda Imaaraadka Carabta ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed way soo dhaweeyeen dalkoodii ayay ku soo dhaweeyeen ilaa haddana xiriirka ganacsiga ayaan la leenahay oo meel weyn maraya waxaana leeyahay xiriirka meesha laga sii wado gacan qabsiga meesha laga sii wado mucaawinada meesha laga sii wado waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo safiirka Maxamed Al Cusmaan oo xaqiiqdii arrintan hormuud u ahaa dadaal iyo juhdi badan ku bixiyay waxaan rabaa halkan inaan baaq kale uga diro dhammaan dawladaha aan saaxiibada aan nahay inay soo kordhiyaan mucaawinadii maadaama lagu jiro xilli abaar ah dalkana uu ku jiro xilli jiilaal ah dawladda Imaaraadka way noo bilowday sida walaalaheen Imaaraadka Carabta noogu soo gurmada waxaan kaloo leeyahay dalka xilli adag ku jira xilli abaar ku jira doorashadina waa lagu jira waxaan leenahay doorashaha violent iyo dib iyo carqalad iyo dagaalna ma doonayno shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay doorashaha loo diyaar garoobo kuwa waxa xun ku fikirayana waxaan leeyahay ka waantooba doorashaha la aado violentna mar rabna nabad ayaan rabnaa